beenaale Musaylama iyo nebinimadii uu sheegtay. Musaylama waxaa la dhahaa Musaylama ibnu Thamaama ibnu Kathiir, wuxuuna ka soo jeedaa qabiilka reer Bani Xaniifa, wuxuuna naftiisa ku magacaabay Raxmaanul Yamaama. Yamaama waa magaaladii Musaylama deganaa, waxayna ku taallaa iminka Sacuudiga, gaar ahaana gobolka Najdi. Musaylama wuxuu ahaan jiray sixiroole iyo faaliye. Waxyaalihii uu dadka ku qaldi jiray waxaa ka mid ah xabad ukun ah ayuu dhex gelin jiray quraarad ama dhalo. Waxaa kale uu isku xiri jiray baalasha shimbiraha. Wafdiga reer Bani Xaniifa. Musaylama wuxuu soo raacay qabiilkiisa markii ay u yimaadeen rasuulka sallallahu calayhi wasallam sanadkii 9aad ee hijriyada islaamka si ay u qaataan diinta islaamka. Hase ahaatee, Musaylama wuxuu dhihi jiray, haddii Maxamed ii ogolaado inaan nebinimada shuraka kula ahay ayaan raacayaa. Nebigu sallallahu calayhi wasallam markuu arkay Musaylama ayaa wuxuu ku yidhi, haddaad i weydiisato qorigaas kuma siinayo, kamana baxsan kartid amarka Ilaahay. Haddaad dhabar jeedisana waxaa kuu boqmo goynaya Ilaahay. Waxaanan kuu arkaa inaad tahay kii la igu tusay riyada. Ibnu Cabbaas radiyallahu canhu oo xadiiska warinaya ayaa wuxuu yidhi, saxaabada ayaan weydiiyey wixii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku arkay riyada. Kadibna Abu Hurayra ayaa dhahay, rasuulka Ilaahay wuxuu nagu yidhi, hurdada waxaan ku arkay aniga oo sita 2 jijimood oo dahab ah. Kadibna waxaa la ifaray inaan afuufo, waanan afuufay, wayna duuleen. Waxaa la weydiiyey, maxaad ku fasirtay rasuulka Ilaahayow? Wuxuu dhahay Nebiga sallallahu calayhi wasallam, waa 2 beenaale oo aniga gadaashii imaanaya. Mid waa Aswadul Cunsi, kan kalena waa Musaylama. Musaylama markuu laabtay ayuu gaaloobay, wuxuuna sheegtay inuu nebi yahay. Wuxuuna bilaabay inuu alifo erayo wata sajci. Sajci waa ereyada xuruufta u dambeysa ay isku egyihiin. Waxyaaluhu dhihi jiray waxaa ka mid ah, Ilaahay naagta uurka leh wuu u nimcaystay, wuxuuna ka soo saaray ruux ordaya meel u dhaxaysa uus iyo calool. Kadibna wuxuu qoomkiisa u xalaaleeyey khamriga, zinada iyo xaaraanta, wuxuuna qabiilkiisa ka saamaxay salaadihii. Kadib markuu guursaday naagta la dhaho Sajaax oo iyaduna nebinimo sheegatay, warqadii Musaylama soo diray. Musaylama wuxuu warqad u soo diray Nebiga sallallahu calayhi wasallam isagoo leh, waxay ka timid Musaylama oo ah rasuulka Ilaahay, kuna socota Maxamed oo rasuulka Ilaahay ah. Nabadgelyo korkaada ha ahaato. Waxaan shuraka kugula ahay nebinimada, dhulkana qayb anagaa leh, idinkuna qayb qaata. Hase ahaatee, reer Quraysh ayaa xadgudbaya. Warqadda waxaa sida 2 nin oo Musaylama soo diray, waxayna u dhiibeen rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasallam. 2 nin ayuu rasuulku weydiiyey, maxaad rumaysantihiin? Waxay dhaheen, Musaylama ayaa nebi inoo ah. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, haddii dadka fariimahaas la dilayo waan idin dili lahaa. Kadib rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu habarqabo Musaylama u diray warqadan, ku bilaab magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo tan gaarka haba. Katib Maxamed oo rasuulka Ilaahay ah, kuna socota Musaylama oo beenaale ah. Nabadgelyo korkooda ha ahaato ciddii hanuunka raacda. Dhulka Ilaahay baa iska leh, wuxuuna dhaxal siiyaa addoommadiisa ciddii uu doono. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu warqadda u dhiibay saxaabi la dhaho Xabiib ibnu Zayd oo ka mid ahaa saxaabadii reer Ansaareed. Xabiib wuxuu warqadda u geeyay habarqabo Musaylama. Musaylama wuxuu weydiiyey saxaabigii, ma rumaysan tahay inuu Maxamed yahay rasuulka Ilaahay? Wuxuu yidhi, haa. Musaylama wuxuu dhahay, anigana ma ii rumaysan tahay inaan ahay nebi? Saxaabigu wuxuu dhahay, kuma maqlayo. 3 jeer ayuu Musaylama weydiiyey su'aashaas, isagoona isla jawaabta ugu jawaabay. Dabadeedna Musaylama wuu cadhooday, wuxuuna dilay saxaabigii isagoo hilibkiisa jarjaray. Sanadku markuu ahaa 11 hijriyada ayaa la oofsaday Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Kadibna carabtii reer baadiyaha ahayd ayaa gaalowday. Waxaa khaliif ahaa Abubakar Sidiiq radiyallahu canhu, wuxuuna go'aansan inuu la dagaalamo dadkii gaaloobay. Wuxuuna u diray ciidamo uu hogaaminayo Khaalid bin Waliid, kuwaas oo la dagaalamay Dulayx al-Asadi iyo ciidamadiisii, waana ka adkaaday. Kadibna wuxuu u soo ruqaansaday dhankaas iyo Yamaama ay ciidamada Musaylama joogeen. Guurkii Musaylama iyo Sajaax. Xilligaas waxaa batay dadka iska sheegtay nebinimada. Waxaa sidoo kale nebinimo sheegatay islaan la dhaho Sajaax oo ah reer Bani Thaqliib, haysatana diinta Nasaarada. Markii ay nebinimo sheegatay ayaa waxaa soo raacay ciidamo qabiilkeeda ka tirsan, waxayna go'aansadeen inay la dagaalamaan Abubakar Sidiiq radiyallahu canhu. Waxaa ciidamadeeda ku biiray qabiilka reer Tamiim. Hase ahaatee, waxay u leexatay dhankaas iyo Yamaama, waxayna tiri, Musaylama ayaan dhulka ka qaadanaynaa. Musaylama markuu maqlay in gabadha Sajaax ku soo socoto, wuxuu diray ciidamo ammaan ka dalbanaya. Kadibna Musaylama iyo 40 nin ayaa u tagay Sajaax,
wuxuuna u bandhigay inuu dhulka kala bar siinayo qaybtii Quraysh haysatay. Sajaax way ku qanacday, wayna ogolaatay. Musaylama wuxuu kala noqday naagtii Sajaax, wuxuuna weydiiyey, adiga maxaa lagu waxyoodaa? Waxay tidhi, anigu gabar ayaan ahay, adigu bilow, maxaa lagu waxyoodaa? Wuxuu yidhi, waxaa la ii waxyooday sidaan soo socota. Ilaah baa dumarka ka abuuray furuuj, xubnaha taranka, wuxuuna nimanka ka yeelay raggoodii. Wuxuu ku hadlay arrimo kale oo faaxisho ah. Dabadeedna wuxuu ku dhahay, ka waran haddii aan isguursano oo labadeena qabiil ay carabta oo dhan ay cunaan? Waxay tidhi, waa caadi. Kadibna wuxuu u tiriyay hadallo kale oo faaxisho ah oo ka warramaya galmo iyo wax la mid ah. Markii ay 3 maalmood la joogtay, ayay ka dalbatay meherkeedii. Habaarqab Musaylama wuxuu meel uga dhigay in laga daayo salaadihii oo uu ka saamaxay, wuxuuna u baneeyay zinada iyo xaaraanta oo dhan. Khaalid oo u soo ruqaansaday dhankaas iyo Yamaama. Khaalid markii uu u soo dhowaaday ayaa gabadhii Sajaax carartay. Musaylamana ciidamo 40,000 sare u dhaafaya ayuu diyaarsaday, wuxuuna saldhig ka yeedhay meel la dhaho Caqraba. Khaalid ibn Waliid radiyallahu canhu waxaa ciidankiisa afaafka hore u hogaaminayay saxaabiga Shuraxbiil ibn Xasana. Labada dhinacna waxaa kale hogaaminayay Zayd ibn Khadaab oo ahaa Cumar ibn Khadaab walaalkii, oo xataa islaamnimada ugu horreeyay, iyo Abu Xudayfa radiyallahu canhu. Saxaabada muhaajiriinta waxaa calanka u siday Saalim mawla Abu Xudayfa, halka reer Ansaareedna uu calanka u siday saxaabiga Thaabit ibn Qays radiyallahu canhu. Dhanka kale, Musaylama waxaa ciidamadiisa hogaaminayay Muxkam ibn Dufayl iyo Rajaala ibn Cafawa. Labada nin ka dambe wuxuu ahaa habaarqabo weyn oo baadiysiiyey qabiilkiisa reer Bani Xaniifa. Rajaala wuxuu ka mid ahaa dadkii islaamay haddana ridoobay ee Musaylama u qoray nebinimada. Abu Hurayra wuxuu yidhi, annaga oo koox ah oo uu nala joogo Rajaala ibn Cafawa, ayaa nebigu yidhi, waxaa idinku jira nin gooskiisu naarta dhexdeeda ka weyn yahay buurta Uxud. Wuxuu yidhi Abu Hurayra, dadkii way wada dhinteen, aniga iyo Rajaala mooye. Waxaan uga cabsanaya naftayda ilaama uu Rajaala u qiray Musaylama nebinimada. Bilowgii dagaalkii wuu bilaabmay, waxaana marka hore la jebiyey ciidamada muslimiinta ilaama ciidankii Musaylama ay soo gaadheen tandhadii Khaalid oo ay joogtay xaaskii Khaalid oo la dhaho Ummu Tamiim. Waxaa kale oo ku xidhnaa tandhada ninka la dhaho Majaac ibn Marara oo ka tirsanaa qabiilka reer Bani Xaniifa. Ciidamada reer Bani Xaniifa waxay dooneen inay dilaan xaaskii Khaalid, hase ahaatee Majaac ayaa u diiday oo u sheegay inay si fiican u daryeeshay. Saxaabadii ayaa Khaalid ka dalbaday in la kala saaro ciidamada, sababtoo ah waxaa muslimiinta ku dhex jiray qabiilo reer baadiye ah oo dhankooda muslimiinta looga soo dhacayay. Kadibna Khaalid ciidamada ayuu kala saaray, wuxuuna u qaybiyey muhaajiriin iyo ansaar iyo qabiilooyinka Carabeed ee kale si loo kala ogaado meesha laga soo dhacayo. Waxaa dhawaaqay saxaabigii Zayd ibn Khadaab radiyallahu canhu, wuxuuna yidhi, gooskiina qaniina oo ragga iska dhiciya oo hore u socda, aniguna Ilaah baan ku dhaartay hadli maayo ilaama aan ka jebinayo reer Bani Xaniifa, ama aan Ilaahay kala kulmayo oo aan xujadeeda u sheeganayo. Saxaabiga Thaabit ibn Qays ayaa lugihiisa god u qoday si aan u cararin oo u dhiirigeliyo ciidamada muslimiinta, wuuna dagaalamay waana la dilay. Saxaabiga Saalim mawla Abu Xudayfa ayaa lagu dhahay, Saalimow, ma dhankaaga nagala soo dhacaya? Kolkaas buu dhahay, haddii aniga xaggayga laydinkaga soo dhaco, waxaan ahay kan ugu xun ee xifdiya Qur'aanka Kariimka. Abu Xudayfa wuxuu yidhi, ehelkii Qur'aankow, ku qurxiya Qur'aanka maanta ficil ahaan. Maalintaas halhayska muslimiintu wuxuu ahaa, yaa Muxammadah. Waxaana goobtaas ku shahiiday saxaabo badan sida Zayd ibn Khadaab, Thaabit ibn Qays, Saalim mawla Abu Xudayfa iyo Abu Xudayfa ibn Cutbah. Saxaabadii way samreen ilaama ay jebiyeen reer Bani Xaniifa, kadibna way yaaceen oo waxay galeen dhufays loo bixiyey beertii dhimashada. Waxaana uu tilmaamay inay beertaas galaan ninkii wasiirka u ahaa Musaylama ee la dhihi jiray Muxkam ibn Dufayl. Hase ahaatee isagiina goobtaas ayaa lagu dilay, waxaana dilay Cabdiraxmaan ibn Abi Bakr as-Sidiiq radiyallahu canhu. Sidoo kale waxaa la dilay habaarqabe Rajaala ibn Cafawa, waxaana dilay saxaabigii Zayd ibn Khadaab. reer Bani Xaniifa markii ay dhufayska galeen ayay soo xidheen albaabkii. Kadibna saxaabiga Bara ibn Malik ayaa dhahay, aniga igu tuura derbiga shishadiisa si aan idinkaga furo albaabka. Waana lagu tuuray, wuuna dagaalamay, sidaas baan albaabka ku furay. Muslimiintii waxay galeen beertii, waana la isku midhay.
si la isku leynayay. Kadibna Waxshi ibnu Xarbi oo ah ninkii Xamse dilay ayaa meel daloosho waran kaga tuuray habarqabe Musaylama oo taagan oo khudbaynayay, sidaas baanu ku dhintay. Dagaalkii markii uu dhammaaday ayaa reer Bani Xaniifa islaameen, waxayna u tageen Abubakar Sidiiq radiyallahu canhu, wuxuuna weydiiyey, waxaad ii sheegtaan wixii Musaylama idinku akhrin jiray? Waxay dhaheen, khaliifkii rasuulka Ilaahayow naga daa ma odhan karnee. Wuxuu yidhi, maya ee sheega. Waxay dhaheen, wuxuu dhihi jiray, rahow kii labada rahood dhaleenow, meeshaad rabto ka qayli. Aduu biyaha ma dhoobaysid, kuwa biyaha cabayana uma diidid, madaxaagu biyuu ku dhex jiraa, dibnahaaguna dhoobada. Abubakar ayaa dhahay, war hooggiine, hadalkan qof caqli leh kuma soo bixin.